بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليالكسو هذا موضوع سودلا أذيك هداد ونكسنتهاي وباري وتوالدكاغا ilmahaaga ayaa baari ku noqon doona. haddii caasi aad tahayna ilmahaaga ayaa caasi ku noqon doona. wadadii waalidkaaga aad u martay ayay ilmahaadana ku soo marayaan. walaalayaal waayahan dambe waxaa batay inkastoo hadda aakhiru zamaana lagu jiro da'yar oo waalidkooda ku afcilinaayo la murmayo waalidkooda hadalkiisa aan qiimeyneynin, dhagihii iPhone ay ku go'an yihiin, dhalooyinka guryaha yaalla kaga mashquulay waalidka hadalkiisa iyo howlihiisa, waalidka aan badanaynin. markaad u kurgasho maba kala garan kartidbo gabadha iyo hooyadeed ma kala garan kartid. gabadha ma waalidkii ah ama yaa waalidkii ah, ma gabadha yaa waalidka islaam hooyadii gabadhi ilaa waxa waay gabadhi hadii ay hooyo ka amar qaadanaynin waxa isleedahay labadan qofood walaalamiya. gabadhi iyo hooyadeed waxa u moodaysaa inay walaal yihiin, laba qofood oo facajin inay yihiin aad maleynaysaa. sidaas awgeed marka waxa laga rabaa qof kasta oo muslim ah waxa weeye waalidkaaga waxa weeye waa wax badan oo kula soo maray. dadkii oo macna waalidkii uu jeclaa ama ahalka la ahaa ama qaraabadiisii saaxiibadiisii inuu markaas xiriirisa laga rabaa. sidaas ayaa marka baarnimo ku noqonayso. waalidka dhintay aan ula jeedaa, waalidka dhintay sidaas ayaa looga baar noqdaa. waalidka nool laakiin wax qabad u baahan yahay in la daryeelo, la dhageysanin, la quursanin, uffin la dhihin, uff la dhihin. walaalayaal haddaba waxaa qof kasta oo muslim anta astaghfiruka wa atuubu ilayk.